halkani waa BBC oo aad ka dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban efamyada magaalooyinka qaar taleefanka gacanta iyo barta internetka ee bbcsomali.com subax wanaagsan idil ahaantiinba meel kastoo aad nagala socotaan waa subax axada bisha shanaad ay tahay 31 sanadku waa 2020 goorshoogtu waa 7 subaxnimo oo gowa wararka aanu subaxan saaka idin haynana waxaa ugu mudan wiil maskiin ah in la dilay oo booliiska ay dileen shaqadeena haddana ay tahay sidii aan uga shaqayn lahayn in booliiska mar dambe aynan fursad u helin in ay qof noloshiisa saas oo kale ay u qaadaan waa ilhaan cumar oo ka hadashay xaaladda cakiran ee ka taagan gobolka laga soo doorto waraysi gaara ayaannu idinka haynaa suudaan oo u yeedhatay safiirkeeda etoobiya xilli xaaladda labada dal ay qasan tahay daraasad cusub oo ka dayrinaysa xaaladda caafimaad ee soomaaliya iyo halkee ayay isla marayaan jigjiga iyo fayraskii korona iyo qodobo kale oo ku saabsan soomaalidii caalamka ciyaariyina ka mid yihiin barnaamijka waxaa soo saaray cabdulqaadir yuusuf cali waxaan ahay cabdiraxmaan cali dhimbiil ee akhyaare ee subax wanaagsan qodobadaas oo fidsan weynoo dambeeyana aynu ku horreyno bal wararkii caalamka oo uu diyaar inoo leeyahay cabdiraxmaan xaaji cadow mahadsanid dhimbiil mudaharaadyo ballaadhan oo rabshado wato looga soo horjeeda ninkii madowga ahaa ee aan hubaysnayn dilay askari boolis cadaana ayaa gelgelay maraykanka oo dhan ugu yaraan 30 magaalo oo ka mid ah dalka maraykanka ayay mudaharaadyadu haatan ka socdaan mudaharaadayaasha magaalada Los Angeles waxay dab qabadsiiyeen gawaarida boolista Atlanta iyo Philadelphia iyo weliba gobollo kale waxaa laga dhawaaqay bandow si mudaharaadyada rabshadaha wata loo xakameeyo booliska magaalada Minneapolis oo ahayd halkii isniintii lagu dilay George Floyd ayaa qaaday tallaabooyin adag oo ay kala eryayaan mudaharaadayaal tiro badan ayaa wadooyinka magaalada isugu soo baxay iyadoo magaaladaasi laga dhawaaqay bandow booliskuna si ay mudaharaadayaasha u kala eryaan waxay adeegsadeen sunta indhaha ka ilmaysiisa madaxweyne Trump ayaa deganaansho la'aanta ka taagan Maraykanka ku eedeeyay kooxo isu abaabulay dhac iyo biliiliqo wuxuuna Mr. Trump uu sheegay in ay kooxahaasi dabada ka raaciyaan kooxaha ay siyaasadoodu bidixda tahay tirada dadka uu soo ritay fayraska corona ee caalamka ayaa la sheegay inay kor u dhaaftay 6 milyan kororka ku yimid tirada dadka cudurka uu haleelay ee dunidan ku nool ayaa ku soo beegmaysa xilli ay dalal badan bilaabeen dabcinta xayiraadaha ka dhashay COVID-19 si ay dhaqaalahooda cudurka uu wiiqay ay dib ugu soo nooleeyaan ugu dambeyn dadka fayraska corona ugu dhintay dalka Brazil ayaa la sheegay inay tiradoodu gaartay 29,000 iyadoo cudurka uu soo ritay 1 milyan qof tirada dadka COVID-19 ugu dhintay Brazil ayaa ka sarmaray dalka Faransiiska halka uu Brazil xagga dhimashada dunida haatan kaga jiro kaalinta afraad warkii idaacadeena subaxnimo wanaag inta dib ku celiyo stuudiyeena Cabdiraxmaan Cali Dhimbiil aad buu mahadsan yahay cabdiraxmaan xaaji cadow oo la socodsiinayay wararkii caalamka ee dhageystayaal u diyaar garoobay idaacadeena subaxnimo oo fidsan aynu ku bilownaa sida aad wararkaba ku maqlayseen duufaano dibadbaxyaa ayaa weli ka socda magaalooyin iyo gobollo kala duwan oo Maraykanka ku yaal waxayna galeen maalintii shanaad banaanbaxyadani ka dhashay dilkii George Floyd oo ahaa nin madow oo askari cadaan si ula kaca u dilay waxaa dhacay khasaare iyo biliiliqo fara badan duqa magaalada Minneapolis ayaa dalbaday in ciidamada militariga ee dalkaasi ay hawsha soo farageliyaan maadaama xaaladdu isu sii tarayso xogtii u dambeysay iyo bal halka wax marayaan Cabdulqaadir Yuusuf Cali oo stuudiyaha inagula sugan baa inoo haya cabdiraxmaan barasaabka gobolka Minnesota Tim Walz ayaa sheegay in dibadbaxyada ay ka dhasheen khasaaro aan la saadaalin karin in xaaladdu ay haatan cakiran tahay magaalada ayaa waxaa lagu daabulay ciidamo dheeraad ah si loo xakameeyo xaaladda halkaasi ka alowsan ilaa 30 magaalo oo ka mid ah dalkaasi Maraykanka ayaa waxaa laga soo sheegayaa mudaharaadyada inay ku faafeen Los Angeles ayaa iyadana laga sheegay in gawaari kuwa booliska ah lagu gubay halka Atlanta laga dhawaaqay bandow iyo si mudaharaadyada halkaasi loo xakameeyo dhanka kale madaxweyne Donald Trump ayaa xaaladan ka taagan Maraykanka ku eedeeyay kooxo isu abaabulay dhac iyo biliiliqo oo ay dabada ka riixayaan ayuu yiri kooxaha ay siyaasadooda tahay bidixda fog Drake Jeffon oo ahaa askarigii lowgiisa ku dilay George Floyd ayaa la xiray galinkii dambe ee Jimcaha isagoo lagu eedeeyay dilka Floyd
waxaana la filayaa in maxkamad lasoo taago isniinta islamarkaana dad kale loo qabto ninkaasi sida uu sheegay xeer ilaalyaha deegaanka henipin michael freeman. xafiiska xeer ilaalinta ayaa sheegay in uu hayo caddayn muujinaysa in Giovanni uu ninka dhintay jilibka qoorta kaga hayay muddo 8 daqiiqo ah iyo 40 ilbiriqsi, taas oo 2 daqiiqo iyo 53 ilbiriqsi oo ka mid ah uusan nuuxnuuxsanayn Floyd. Cabdiraxmaan, wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ayaan si aan horey looga baran ku amartay ciidamada dalkaasi inay heegan geliyaan cutubyo ka tirsan booliska militariga si haddii loo baahdo xaaladda ay gacanta ka baxdo halkaasi Minneapolis loogu daabulo. Cabdiraxmaan, aad buu mahadsan yahay. kaasi waxa uu Cabdilqaadir Yuusuf Cali oo nala socodsiinayay xogtii ugu dambeysay ee Mareykanka oo xaalad qasa ay ka dhalatay dilka ninkaas madowga ee lagu magacaabi jiray George Floyd. haddaba dhanka kale waxaa noo suura gashay inaanu kala hadalno xaaladan xildhibaan Ilhaan Cumar oo aqalka Koongareeska Mareykanka ku matasha xaafadaha ibtilidu ay ka ogan tahay. waxay u warantay Siyaad Siciid Saalax oo Mareykanka kula sugan oo ugu horreyn weydiiyey baldareenkeeda xaaladda ka taagan Minneapolis. aad iyo aad aan uga calool xunnahay in magaaladeennii aan ku fiirsano iyadoo gubanayso. waxaan ka dadaaloynaa sidii loo ilaalin lahaa dadka dukaamadoodii iyo magaalada wixii investment business ahaan yaalay. governorka iyo mayorka Minneapolis iyo mayorka St. Paul waxay aad iyo aad uga shaqaynayaan sidii ay ugu dadaali lahaayeen public safety in ay dhinacaasaytii adkeeyaan. annagana waxaan ka shaqaynaynaa sidii aan dadka ugu sheegi lahayn in communitygooda iyaga ilaaliyaan oo ay fiiriyaan yaa dadkee bannaanka ka imaanayo isku dayooyo in dhibaatooyin ay dadka u geystaan. gartay, waxaad ka mid tahay sharci dejiyaasha dalkan. dhacdooyinka noocan ah waa soo noqnoqdeen. maxaa laydinka filayaa oo dhacdadan aad ka qaadanaysaan ninka madow lagu dilay? wiil maskiin ah in la dilay oo booliiska ay dileen. shaqadeena haddana ay tahay sidii aan uga shaqayn lahayn in booliiska mar dambe aynan fursad u helin in ay qof noloshiisa saasoo kale ay u qaadaan. taasna waxaan ka soo gudbin doonaa sharciyaalo cusub oo ka shaqaynaya sidii booliiska magaalooyinkeena ay uga dhex shaqayn lahaayeen iyo sharciyada iyaga haddii dembi ay galaan lagu soo dejin karo. Ilhaan, tan khasaaraha xagga baamucsharka iyaga ka waran. waxaan ka shaqaynaynaa sidii aan taakulayn communityyaalkeena aan ugu keeni lahayn. waan ognahay dad badan businessyaalkoodii in ay gubteen oo dhaqaalo badan ay ka soo shaqeeyeen oo ay safegaraysteen baaba'een. taasna waa shaqo annagoo dhan aan isku xil saarayno haddii aan nahay dadka matalo Minneapolis sidii aan degdeg taakulayntaasaytii aan u keeni lahayn dadkana ay u heli lahaayeen fursado ay businessyaalkooda ay ku furaan oo ay taakulayntaas u helaan. Ilhaan, waxaan ku weydiin lahaa madaxweyne Trump waxa uu ku eedeeyay duqa magaalada Minneapolis Jacob Frey hoggaan la'aan ama qof shaqadiisa ka soo bixi waayey. sidee u aragtaa hadalka adigu? Trump aniga uma malaynayo inuu yahay qof oo dad far ku fiiqi karo. haddii uu ahaan lahaa madaxweyne fiican maanan haysan lahayn 100,000 oo qof COVID-19 u dhintay. maanan haysan lahayn 40 million people oo shaqo la'aan ah. maanan haysan lahayn magaalo kasta oo America weyn oo America ku taalo oo hadda gubanayso. marka haddaan aniga ahay mayorka Minneapolis waxaan dhihi lahaa adiga horta taada ka soo bax intaadan dadka kaleetooda aadan soo faragashan. midda kale Ilhaan, madaxweyne Trump waxa uu sheegay dad taageerayaashiisa oo loogu yeero magaca Mega inay jecel yihiin dadka madow oo uu hadalkaas yiri shalay mar uu ka soo duulayay Washington. marka ma waxa la sooran karaa wuxuu uga doonayaa cod dadka madow mise wuxuu rabaa inuu xiisadatan ku damiyo? maxay kula tahay adiga? uma malaynayo. waan ognahay doorashadii la soo dhaafay in 3% caman uu helay dadka madow oo u codeeyeen. haddana waxaan u malaynayaa sida uu u dhaqmaayay iyo shaqada uu haayo inay keenayso inuusan dad madow dhan aynu codeynin. taasi waxay ahayd xildhibaan Ilhaan Cumar oo u warramaysay Siyaad Siciid Saalax. haatanna Suudaan ayaa u yeedhatay wakiilkeeda Itoobiya iyagoo ka mudaharaadsan waxay ku sheegeen faragelinta soohdimaha ay la leeyihiin ay soo galeen maleeshiyada Itoobiyana.
waxaana labada dal hore ugu socday wadahadallo ku saabsanaa xiisada ka dhex taagan dhanka kale ee biyo-xidheenka webiga niilka kolkaas oo Itoobiya sheegtay inay dhammaystirkiisii wado biyo-xidheenkaasi. haddaba si aan u falanqeyno xiisadan cusub ayaan ka waraystay Cabdulqaadir Macalin Maxamed Geedi oo ah bare iyo cilmi baare ka tirsan jaamacadda International of Africa ee Khartoum. goor sii horeysay ayuu ii waramay. sababta keentay waa caddahay Suudaan dhinaceeda waxay leedahay waxa lagu soo xadgudbay dhulkii Suudaan ayaa lagu soo xadgudbay waxa lagu soo xadgudbay shacabkii Suudaan meesha maalintii Khamiista waxa dhacday iska horimaadkii waxa jira si dawladda Suudaan ay sheegtay in maleeshiyaad oo Ethiopian oo gacan ka helaya ciidanka Ethiopia ay soo galeen dhinaca Suudaan u soo gudbeen ayna dileen sarkaal ciidanka xuduudda haysta ee Suudaaniya waa ku dhintay 6 kale oo ciidankiisii waa ku dhaawacmeen 3 ilaa 4 qof oo rayada oo mid caruur yahay iyaguna sidoo kale way ku dhaawacmeen marka arinta ayada ah Suudaan cabasho ayay ka qadintay oo ay maaragtay u sheegayso dhanka kale Ethiopia inaan arrimahaas oo kaleeto aan la aqbali karin mar kale inay soo laabtaan marka bal deegaanka iyo dhinaca ay sheegtay in lagaga soo xadgudbay bal maxaynu ka naqaanaa dhulkaas muxuu la gaar yahay dhulkaas waa dhul beereed ka tirsan gobolka Gadaarif marka dhaceen 2 tuulo oo la yiraahdo barkat Nuureyn iyo tuulo kale la yiraahdo Al-Fursan ayay wax ka dhaceen laakiin waxa jiri jirtay mar walba inay maleeshiyooyinka Suudaan iyo Etoobiyaanka ama beeraleyda ay ku soo xadgudbaan dhul beereedka Suudaanta marka 3 March ee la soo dhaafay ayay ciidamada Suudaan dhulkii Suudaanta ayay markii koowaad ku faafeen waxaana jiri jirtay dhulkaasi inuu iska ahaan jiray dhul cidlaah oo dawladda Suudaan ciidan ahaan inkastoo dhulkeedii yahay oo xataa Etoobiyaanku marna dhulkaas inay iyagu leeyihiin ma sheegan laakiin Etoobiyaanka dhulka way iska beeran jireen manaafacaadsadaan marka dhulkaas waa dhul balaaran oo gaaraya ilaa iyo 700 oo fadaan marka dhulku in muddo ah ayay macnaha xadkii baan calaamaysnayn marka maadaama xadku calaamaysnayn Etoobiyaanku dhinaca Suudaanta u soo gudbi jireen waa iska beertaan waa iska gurtaan saasay ahaan jirtay marka maadaama hadda dhulkii ay ciidamadii Suudaan ay dhulkii ku durkeen ayaad moodaa inuu isku dhaca cusub keenay taariikh ahaan bal markaynu ugu noqono Suudaan iyo Ethiopia taariikh isqabsi oo dhul oo saas oo kale ay hore ma jiri jirtay taariikhda waxa weeye dhul ahaan hadda ma dhihi karo laakiin xilliyadii mahadibu Suudaanta uu jiri jiray oo qarnigii 19aad iyo meelahaas iyo bilowyadii qarnigii 20aad dagaalaha jiri jiray xataa Suudaantu waxay dileen boqorkii Etoobiyaanka oo waagaas oo la dhihi jiray Yohans marka dagaalo hore waa jireen xilliyadii jabhadii Tigreed ee dagaalamaysay oo maxaa ku raada Milisanaag uu hogaaminayay jabhadahan xornimada Eritrea u dagaalami jiray xilligii Numeyri iyo xilligii xataa Al-Bashir qaybihiisii hore aad baa dhinaca Suudaan looga gacan siiyay oo dhinaca marka la yiraahdo taliskii Mengistu iyo iskuma fiicnayn Suudaanta xageeda bal marka aynu eegno halka xal marayo maxaynu ka fili karnaa mustaqbalka in xaaladdu ku dambeyn karto أنا waxaan isleeyahay in kasto wadankan Suudaan oo mar dhaweey dawladda hore isbedel uu ka dhacay oo xaaladii wadanka weli aysan maaragtay arrimahooda guduhu weli aysan arrimuhu aysan 100% ahayn misna waxaan isleeyahay sida warbixinada iyo wararka ka soo baxaya dhinaca Suudaanta in hadii Etoobiyaanku mar labaad ay soo celiyaan dhaqdhaqaaq ay soo celiyaan ciidan ay Etoobiyaanku mar labaad ay gacan kaleeto iyo wax la mid ah haday isku dayaan in maaragtay aysan dagaalmo horta inay tahay ciidamada Suudaanna waxay sheegeen inay maaragtay goboladaas xadka ah ay ciidamo fiican geeyeen oo meesha uu ka jiro diyaar garow fiican uu ka jiro marka waxaan isleeyahay haddaan dadaaladan diblomaasi aysan guuleysan waxaan isleeyahay waxba maaragtay oo Etoobiyaanku aysan ka garaabin wixii dhacay oo ay maaragtay shaqaaqa kala soo celiyaan waxaan isleeyahay meeshaas isku dhac waa imaan karaa inkastoo muddo labada dalba inaysan hadda dagaal weyn aysan maaragtay diyaar u ahayn kaasi waxa uu ahaa Cabdulqaadir Macalin Maxamed Geedi oo ah bare iyo cilmi baare ka tirsan jaamacadda International of Africa oo nooga warramayay xaaladda ka soo cusboonaatay Suudaan iyo Ethiopia dhageystayaal wali halkaad nagala socotaan waa BBC xilli goorsheegtu tahay 7:15 daqiiqo BBC
BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba. haatanna haddaynu ku sii soconno warbixinaha kale idaacaddeenna subaxnimo magaalada Jigjiga ee dowlad deegaanka Soomaalida oo hore u shaacisay tiro badan oo dad oo laga helay fayraska COVID-19 ay ahaayeen dadaan deegaanka u dhalan ayaa ku dhawaaqday helidda qofkii ugu horreeyay ee deegaanka u dhashay ee fayraskaasi laga helo. haddaba xogtii ugu dambeysay waxaan ka waraystay wariye deegaanka ku sugan waa Maxamed Ibrahim Ruush. Cabdiraxmaan aad baad mahadsantahay markaynu eegno xaaladda deegaanka ee xanuunka COVID-19 Cabdiraxmaan waxaa la oran karaa runtii waa mid maalmaanta ka dambeysa ee kor u sii kacaysa sida sheegeen saraakiisha caafimaadka ee maamulka magaalada Jigjiga waxay sheegayaan in la helay 3 qof oo xanuunkaasi qaba taas saraakiishu ay sheegeen in 3 qof ee xanuunka laga helay in qof kamid uu kamid ahaa dadka degan magaalada Jigjiga marka warka ugu weyn waxa uu noqonayaa markii ugu horeysay caasimadda deegaanka qof degan laga helay xanuunkaasi tirada guud waxa saraakiishu ku sheegeen deegaanka inay tahay 88 qof haddii qofkan yahay qofkii koobaad ee deegaanka u dhashay xanuunka laga helo tiradii hore ee dowlad deegaanku sheegi jirtay halkee ka iman jirtay iyadu Cabdiraxmaan dadkii hore ee dhammaan ee dowladdu ay sheegtay waxay ahaayeen kuwii ku jiray goobaha karantiilka laakiin qofkani waxa uu noqonayaa mid ka duwan xaaladii hore oo waxa uu qofkan uu kamid ahaa dadka ku nool magaalada Jigjiga marka runtii khatar weyn ayay arintaasi dad badan ay ka muujiyeen bal ka waran dhanka wacyigelinta iyo xaaladda isku socodka deegaanka xaaladdu ma sidiiba mise waxba isbedelay howlihii wacyigelinta ka dhanka ahaa ololaha la dagaalanka xanuunka COVID-19 waxa ay ku weli ka socda caasimadda deegaanka iyo guud ahaanba qaybaha kale ee uu ka kooban yahay dowlad deegaanka Soomaalidu inkastoo dadka Soomaaliduna ay weli ay ku sugan yihiin marka adeegto goobaha dadku ay isugu yimaadeen oo ugu horeeyaan maqaaxiyaha iyo markay noqoto fadhi ku dirarka suuqyadii runtii waxaa la oran karaa wacyigelintu ay socotaa laakiin dadku ma aha runtii Cabdiraxmaan kuwa weli u dhaga duleelaha ama runtii hoggaansamaya baaqyada ka soo baxaya kooxaha caafimaadka marka dowladdu markaan soo ururiyo waa ay wadaa howlihii dhinaca wacyigelinta runtii laga hadlay khatarta uu leeyahay xanuunkan xataa adduunka sida uu u saameeyey COVID-19 kaasi waxa uu ahaa wariye Maxamed Ibrahim Ruush oo ku sugan magaalada Jigjiga haatanna 30 sano ee u dambeeyay Soomaaliya waxay ahayd barxad colaadeed khilaaf iyo masiibooyin dabiici ay ku habsadeen taasoo keentay in waaxda caafimaadka ee dalku uu dhibano u noqdo xaaladda adag ee lagu wada sugan yahay daraasad ay sameeyeen macadka Heritage iyo jaamacadda Muqdisho ayay si gaar ah ugu eegeen xaaladda caafimaad ee dalka muddadaas iyo dhibaatooyinka gaarka ah ee ku gadaaman iyo sida looga dabaalan karo daraasadaas oo cilmi baare ka ahaa Dr. Cali Cabdullaahi ayaa bal iga warramay ugu horreyn waxa ay ku sheegeen iyo sida xal yahay daraasadan la sii daayay waxay ku saabsan tahay kobcinta karaanka qofka Soomaaliga si kale haddaan u iraahdo waxa la socotaa wadankeena 30 sano in ka badan ayaa waxa ka socday dhibaatooyin iyo dagaalo sokeeyay masiibooyin dabiici ah dhibaatooyinkaas marka waxay keeneen saameyn xun ay ku sameeyeen dhammaan adeegyada caafimaadka dalkeena waxay saameyn xun ku sameeyeen heerka aqooneed ee dhakhaatiirta iyo xirfadlayaasha kala duwan ee ka hawlgala caafimaadka dalkeena marka daraasadan waxaan u sameynay inaanu bal marka ugu horeysa aanu dib u milicsano dhibaatooyinka jira ee guud ahaan caafimaadka dalka jira gaar ahaanna aan si gaar ah u eegno xagga aqoonyahanka iyo xirfadlayaasha caafimaadka dhibaatooyinka caqabadaha ka jira marka caqabadaha idin soo baxay ee daraasadda markaad samayseen ka soo dhex baxay ee caafimaadka Soomaaliya idinka muuqday maxay yihiin caqabadahaas guud ahaan daraasadda natiijooyinka ka soo baxay waxay muujinayaan dhibaato baaxad leh ay ka jirto caafimaadka waxay muujinaysaa in aqoonyahanka iyo xirfadlayaasha caafimaadka dalku ay tiro ahaan iyo tayo ahaanba intii looga baahnaayo aad iyo aad ay uga yar yihiin sidoo kale natiijada daraasadan ka soo baxday waxay muujinaysaa guud ahaanba inuu hooseeyo heerka xirfadeed ee bahda caafimaadka waxaa iyaduna aan meesha ka maqnayn xagga qalabka caafimaadka xaggiisa iyo agabkii loo baahnaa mujtamaca Soomaaliyeed loo siiyo adeeg caafimaad marka daraasaddu waxay dabool ka qaaday sidoo kale in xagga shuruucda iyo habraacyadii loo baahnaa caafimaadka dalka goobaha soo saara aqoonyahanka caafimaadka xirfadlayaasha jaamacadaha iyo macaahid oo kale ee dalka iyadana daraasaddu waynu eegnay waxaa noo soo baxday sidii rabay inaysan ahayn marka guud ahaanba sawirka guud oo aan bixin karayo waxa weeyaan runtii in dhibaato weyn ay ka jirta xagga caafimaadka loona baahan yahay sida ugu dhaqso badan wax laga qabto marka meelaha gaarka ay u baahan wax laga qabtaa
daraasadiina muhiimadda ku saarteen maxay kala yihiin si dadku ay u fahmaan bal waxaad la socotaa guud ahaanba marka la fiiriyo dalkeena caafimaadkiisa marka la fiirsho siyaabo badan marka wax loo eego waxaad dareemaysaa meelaha ugu daro dhibaatada ka jirta guud ahaanba horta waxa ugu horeeya hooyada iyo dhallaanka ayaa ugu horeeya oo dhibaato weyn ka taagan tahay adeegyada kala gedisan ay u baahan yihiin hooyada iyo dhallaanku aad bay u hooseeyaan dhimashada hooyada muraaca iyo dhallaanka laftigiisa iyadoo 3 qaybood loo qaybinayo oo dhallaanka 5 sano ka yar kuwa 2 sano ka yar iyo kuwa markaa dhashay 3 qayboodba marka loo fiirsho waxaynu nahay adduunyada meelaha ugu sarreeya ee carruurta ay ku baabaado ama ay ku dhimato iyo hooyooyinku si kale haddaan u yidhaahdo wax ka badan 60,000 oo carruura ayaa sanadkii dalkeena ku dhimata oo u dhaxaysa 5 sano iyo wixii ka hooseeya hooyooyinku waxay gaarayaan 6,000 iyo wax ka badan iyaguna u mulraaca dhibaatooyin la xiriira xagga foosha marka adeega guud ee dalka marka si gaar loo fiirsho dhibaatada ugu weyn meesha ka jirta waxa weeyaan xagga hooyada iyo dhallaanka weeyaan hase yeeshee guud ahaanba runtii dayac weyn baa jira anagu daraasadeeda waxaan xoogga saaraynay inaanu eegno bal xagga aqoon-yahanka caafimaadka iyo xirfadlayaasha tiradooda iyo tayadooda inaan si gaar aan u qiimeyno iyadana waxaa noo soo baxday runtii in dhibaato weyn ay ka jirto haddaan fiiriyo xagga tirada 20,000 oo qof waxaa kusoo hagaagaya qiyaastii 4 dhakhtar ayaa kusoo hagaagaya taasoo aad iyo aad uga yar qiyaasta caalamiga ugu yar ee adduunka loo baahan yahay ama si kale haddaan u niraahno 20,000 oo qof oo population oo meel jooga oo dadkeena u baahan adeeg caafimaad waxaa kusoo hagaagaya 4 kalkaaliye caafimaad iyo 1 umuliso waxaad dareemi kartaa marka standardkaas aad iyo aad buu uga hooseeyaa standardka caalamiga waana dhibaato baaxad la weeyaan oo dalkeena haysta marka warbixintiina ku sheegteen dhibaatada intaa leeg ee xaaladda caafimaadka Soomaaliya ku sugan yahay idinku wax soo jeedina maxaad warbixinta ku sheegteen mise dhibaatada oo mutaxanun baad sheegteen daraasadan waxaa la socdaa istiraatiijiyad baa la socotaa leh geedi socod iyo tubtii loo raaci lahaa daraasaddu waxaa meelaha ugu horreysay aan runtii doonayno haddii alla idmo in wax laga qabto dowladda Soomaaliyeed iyo bulshada caalamka ee Soomaaliya saaxiibada Soomaaliya taageer inta baan doonayno inaan soo jeedino waxa ugu horreeya in kor loo qaado tirada dhakhaatiirta oo runtii aad u yar dhakhaatiirta ugu badan hadda aynu haysanaa waa dhakhaatiir dhalinyaro ah oo cusub oo aan takhasusaadkii lahayn ee loo baahnaa waxaa kaloo iyadana baahi baaxad le ay ka jirtaa xirfadlayaasha caafimaadka iyo farsamayaqaanada heerka dhexe ah yacni aad waxaa noogu yar shaybaaristayaashii waxaa aad noogu yar dad ka shaqeeya muxuu ahaa raajada iyo sawirka waxaa aad noogu yar matalan suuxiyayaashii oo kale qalliinka oo kale dhammaantood ay nagu yar yihiin marka meelaha ugu horreeya anagu aanu soo jeedin waxaa ka mid ah in xoogga la saaro xirfadayaasha dhexe caafimaadka in dhakhaatiirta loo sameeyo tababaro iyo aqoon dheeraada si ay takhasus helaan sidoo kale in wax laga qabto meelaha fogfog ee lama gaaraanka ay dadka reer guraaga ay ku nool yihiin lana geeyo ama loo tababaro waxa loo yaqaano marwa caafimaad oo iyadu aad iyo aad u jaban marka la fiirsho xagga kharashka iyo xagga waqtiga labadaba ay dhib yartahay in la sameeyo kaasi waxau ahaa doctor cali cabdulaahi warsame oo ahaa cilmi baadhihii soo saaray daraasadaasi oo goorsii horreysay ii warramayay haatanna 3 bilood ayaa laga joogaa markii Nigeria xaqiijisay kiiskii ugu horreeyay ee xanuunka COVID-19 ee laga helay dalalka ka hooseeya Saxaraha Afrika haddaba waxaa jira walaac ah in heerka baaritaanka cudurku weli hooseeyo oo ilaa iyo hadda waxaa la baaray wax ka yar 50,000 oo qof xilli dadka dalkaasi ay ka badan yihiin 200 milyan oo qof jamciyadda caafimaadka Nigeria ayaa sheegtay in rumaysan tahay in tirada rasmiga ah ee kiisaska xanuunka dalkaasi laga xaqiijiyay ee farjibaar ka badnaan karto tirada 8,000 ee xanuunkaasi laga helay faahfaahinta warkan waxay noo soo dirtay wariyaha BBC-da Nomi Seshabel waa kan Mucaawiye Maxamed Buraale oo soo jeedinaya Dr. Oluwatimilin Ekbesen oo laga helay fayraska corona ayaa waxaa dhiirigeliyay dad ka caawiyay inuu helo firfircooni nidsami intii uu ku jiray isbitaalka waxa uu la hadlay markii la soo fasaxay kadib markii aad aragtid dad maalin waliba isbitaalka laga fasaxayo waxa aad helaysaa rajo mar kasta waxa aan ku farxi jirnay marka aan aragno qof isbitaalka laga saarayo waxa ayna ahayd arrin inaguna ay niyadda ku hayno Lagos ayaa wadadhaxaad u ahayd fayraska corona ee ku habsaday Nigeria oo ku dhawaad kala bar dhammaan dadka cudurkan ku dhacay ee dalkan waxaa laga helay halkan hase yeeshee waxaa jira walaaca suurtagalnimada inay jiraan kiisas badan oo qarsoon oo 4,000 ee qof waxaa la baaray wax ka yar 1 qof
dr francis faduyile waa madaxa jamciyadda caafimaadka ee dalka. We are worried because the number that we have declared is still far cry from the total number that we have. Waanu walaacsanahay sababtoo ah tirada aanu shaacinay ayaa aad uga fog wadarta guud ee aanu rajaynayno inaanu baadhno. Halkan aanu joogno markaynu eegno waxaanu ognahay in wadarta guud ay ka badan lahayd 4 jibaar bukaanada hadda aanu diiwaan gelinay. Shakiga waxaa nagu dhaliyay waxaanu aragnay bukaano badan oo leh calaamadihii COVID-19ka oo waxaanu haddana natiijada baaritaanka sugaynaa 3 ilaa 5 maalmood. Marka taasi waxay ka dhigan tahay in wax badan ay isku dhex khaldan yihiin oo ay isku wan yihiin. And we are waiting for 3, 4, 5 days before we see their results. So it means we have a lot of backlog. waqooyiga Nigeria waxaa ka soo baxay warar la isdhex maraya oo sheegayay in cudur aan la aqoon ay dadku dhimanayaan. Bishii la soo dhaafay dadka qubuuraha qoda ee gobolka Kano ayaa sheegay inay korortay qubuuraha ay qodaan, waxayna arrintaasi horseeday walaaca in fayraska uu dalka ku faafayo iyadoo aanan laga warhayn. waa Dr. Nkaisen Dembi oo ku takhasusay cudurrada faafa kana mid ah dhaqaatiirta la shaqaynaysa xarunta xakamaynta cudurrada Afrika ee ka jawaabaysa cudurka COVID-19. waxa uu ka walaacsan yahay suurtagalnimada ah in fayraska corona uu ka soo faafo Kano. waxaynu aragnay dad badan oo cudurka uu kula dhacay gobolka Kano oo waxaynu aad uga walaacsannahay in dadka badan ee gobolkaasi uu cudurkan si weyn ugu faafo. dhammaanteen waxaynu ka walaacsannahay in fayrasku uu aad halkaasi ugu faafi doono markii loo barbar dhigo gobolada kale ee dalka Nigeria. gobolka Kano waxa wali ka socda baaritaan hase yeeshee waqtigan la joogo waxa aad u yar qalabka baaritaanka taasoo ku qasabtay madaxa hay'adda kontaroolka cudurrada ee Nigeria Dr. Chikwe Ekwezu inuu bishii la soo dhaafay codsado qalabka wax lagu baaro oo uu soo dhigay bartiisa Twitterka. arrintaasi walaac ay gudaha ka abuurtay oo waxaynu bilowgay bishan la hadalnay Dr. Kida kaas oo ku sugan gobolka waqooyiga ee Borno. waxay dhibaato weyn naga haysataa qalabka lagu baaro COVID-19 ee gobolkan. waxay hadda noo sheegeen inuu ka go'ay saadkii, waxaana ku qasbannahay inaan Abuja ka helno qalabkaas. dalalka Afrika xaalad adag ay wajahayaan oo waxa haysato culays dhaqaale, mid siyaasadeed iyo mid ah sidii loo heli lahaa saad caafimaad. waxaa haddaba lagu baaqayay in la helo goob sida Amazon oo kale ah oo lagu iibsan karo qalabka baaritaanka virus corona. The continent of Africa, a continent of 1.2 to 1.3 billion people. Agaasimaha xarunta kontaroolka cudurrada ee Afrika Dr. John Ngeng Song waxa uu sheegay in arrinta baaritaanka ay caqabad ku tahay qaaradda oo dhan. And the fear that we should have collectively as a continent and Nigeria. cabsidu waxay tahay in arrintan ay qaaradda oo dhan saamaysay. Nigeria waa dalka ugu dadka badan Afrika oo markaa ma waxa aynu weysanahay ayaa hadhow ina dhibaatayn doona oo misna naga saa'id calayn doona kadib markii dad badan ay si lama filaan ah uga soo baxaan calaamadaha cudurka. arrintan wax xiriir lama lahan codsiga Nigeria, hase yeeshee waa inaan si guud loo fahmaa inay qasab tahay inaan helno qalabkii wax lagu baari lahaa oo weliba aynu si buuxda u sameynaa baaritaanada. We have to test to find and test aggressively. xarunta kontaroolka cudurrada ee Nigeria ayaa waxay sheegaysaa inay si degdeg ah u furtay shaybaarro dheeraad ah, hase yeeshee loo baahan yahay in kuwa kale si degdeg ah loo sameeyo si fayraska loo xakameeyo loogana jawaabo walaaca ay dadku ka qabaan dhimashada aanan meel loo tiirinin. aad buu u mahadsan yahay Mucaawiye Maxamed Buraale oo warbixintaasina la socodsiinaya. haatan haddii aynu eegno dhanka ciyaaraha, waxaa dhowaan la filayaa in la bilaabo horyaalka Ingiriiska. haddaba waxaa baadhis ku saabsan fayraska corona lagu sameeyay ciyaartooyda ciyaarta horyaalkaas oo ah 130 ciyaartooy iyo shaqaale isugu jira oo ka kala yimin 20 kooxood ee horyaalkaasi ciyaara. waxaana kaliya laga helay 19 qof, taas oo ka dhigan inaanay cabsi weyn jirin oo horyaalku uu sidiisii u bilaaban doono. intaas ayaynu ku soo afmeeraynaa idaacaddeennu subaxnimo uu soo saaray Cabdulqaadir Yuusuf Cali. waxaan ahay Cabdiraxmaan Cali Dhimbiil. tan iyo inta aynu dib u kulmayno waxaanu idin leenahay maalintu ay idin samaato.